magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ka jirtay xaalad kacsanaan ah iyo banaanbaxyo looga soo horjeedo dadka sida macna darada ah loogu dilo Laascaanood waxaana banaanbaxyadaas ku dhintay dad shacab ah oo aan hubaysnayn taas oo xaaladaasi adkaysay keentayna kacdoon shacab oo gabi ahaan baa lagu diiday ciidanka Somaliland iyo maamulka gobolkaas u qaabilsan Somaliland ayadoo ay jireen kacdoon kale oo xoogan oo ka socday baraha bulshada dhowrkii maalin ee la soo dhaafay kuwaas oo ay wadeen dad diidan in Somaliland ay xukunto gobolka Sool waxayna taasi keentay in shacabku si xoojiyaan banaanbaxyadooda ayna kor u dhahan Somaliland haysaga baxdo Laascaanood waxaana intaas kadib ay Somaliland xoojisay ammaanka guud ee gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood iyadoo la keenay ciidamo dheeriya banaanbaxyaduna sidaas kuma joogsan ee waa ay sii socdeen waxaana ku dhintay dad kale oo shacab ah taasi oo sii adkaysay xaalka Laascaanood waxaana 24kii saac ee la soo dhaafay ay Laascaanood noqotay meesha ugu badan ee laga hadlay iyadoo laga soo saaray in ka badan 20 war saxaafadeed oo kala duwan dhinacyada ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo ku baaqay in la joojiyo waxa ka socda Laascaanood sidoo kale hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo isha lagu hayay ayaa isaguna ka hadlay xiisadda Laascaanood isagoo sheegay inay istifaacaan shacabka reer Laascaanood Puntlandna ay garab taagan tahay sidoo kale ciidamo ka mid ah daraawiishta Puntland ayaa xalay xilli dambe u guuray dhinaca magaalada Laascaanood ayagoo sheegay inay difaacayaan shacabka reer Laascaanood taasoo xiisadda ka jirta Laascaanood ka dhigaysa mid u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland oo markii horeba ku muransanaa gobolka Sool iyo cidda xukunta Somaliland oo dhowrkii maalin ee la soo dhaafay la tacaalasay sidii ay u xakameyn lahayd banaanbaxyada ka socda magaalada Laascaanood ayna u damin lahayd kacdoonka shacabka ee lagu diidan yahay joogitaanka Somaliland ee Laascaanood ayaa waxa ay hadda u muuqataa inay heshay dagaal siyaasadeed oo ay la gali karo Puntland taasi oo looga dhigi karo inay Puntland ka shaqaystay abaabulkana ay leedahay banaanbaxayaasha ka soo horjeeda dawladda Somaliland ee Laascaanood ku mudaharaadaya markii hore waxa ay diiradda siyaasaddu saarnayd magaalada Laascaanood iyo Somaliland iyadoo ay dadka Soomaaliyeed hal ilaa ku wada arkayeen kuwaas oo isku eedeynayay xukuumadda Muuse Biixi inay si gaar ah u beegsanayso dadka reer Laascaanood iyadoo magaalada Laascaanood ka geysanaysa gumaad shacab waxaase taas hadda bedelay inay Puntland ku dhawaaqday inay ciidamo u dirayso magaalada Laascaanood iyadoo xalay magaalada Garowe laga soo duubay muuqaalka ciidamo ka mid ah kuwa Puntland kuwaasi oo ku sii jeeda magaalada Laascaanood sheegayna inay difaacayaan shacabka reer Laascaanood taasoo ka dhigaysa xiisadda Laascaanood ka jirta mid u dhaxaysa laba maamul oo markii horeba ku muransanaa gacan ku haynta gobolkaasi Somaliland ayaa dhowr iyo 10 sano ka hor magaalada Laascaanood ku qabsatay awood ciidan iyadoo ka saartay ciidamadii Puntland ee waqtigaas joogay waxaana intii ka dambeysay ay Somaliland isku fidisay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood oo ay ka dhigatay meesha ugu badan ee ay dejiso ciidamadeeda militariga sida uu sheegay madaxweynaha Puntland habeenkii xalay ahaa maruu ka hadlayay arrinta Laascaanood waxaana ay Laascaanood noqotay mid ka mid ah saldhigyada ugu adag ee ku sugan yihiin ciidamada Somaliland taasi oo Puntland ka dhigtay meel aysan si fudud ku gali karin waxaana dhowr dagaal oo ay qaadeen maamulka Puntland ayna rabeen inay ku soo ceshadaan gacan ku haynta magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool looga qabsaday deegaamo hor leh iyada oo 100 kiiloomitir in ka badan lagu soo durkay laguna soo socday dhinaca Garowe taasi oo keentay inay Puntland ku guul daraysatay isku daygii ay rabtay inay ku soo ceshato magaalada Laascaanood gaar ahaan gobolka Sool waxayna u muuqatay muddooyinkii la soo dhaafay Puntland inay ka tanaasushay mowqifkeedii ku aadanaa inay dagaal ku qabsato gobolka Sool waxaana hadda magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool ka taagan xaalad kacsanaan ah taasi oo keentay inay shacabku kacaan ayaga oo diidan Somaliland sheegayana inay isaga baxaan magaalooyinkooda waana fursad ay Puntland ku heli karto dad badan oo taageersan ayna ku qabsan karto ayna ku soo ceshan karto goboladii laga qabsaday laakiinse Somaliland oo iyadu u muuqata inay gobolkaasi ku faraadaygayso dhowr iyo 10kii sano ee haysatayna ay ka fulisay mashaariic waaweyn ayaa u muuqata mid aan si fudud looga saari karin gacanteeda intaas ayaan ku soo koobaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool